walaal magacaygu waa Faysal Cali Cabdulla Barre waxaan kala soo xiriirayaa miyiga gaalahood xaaladda ay la soo xiriiraya waxa ay tahay anagu waxaan nahay tiim caafimaad oo ka baxay tuulada degan leh oo ka tirsan degmada Ayl ma garatay waa gartay wadaadi markii ay qaylo ka soo yeeray miyiga ku teedsan xeebaha u dhow gaalahood iyo aagaas dhawaqaas baa qaylo ka timi wadaadina ummadii markii aan gaarnay xaaladooda miyo xaalad wadaca la beehay waa ay fiijiiseen markaa xaalad nooceeya weeye xaaladda wadaca alla aad ku tilmaamayso dadkaas waa tafsiir afiyud malnutrition way dadku aad bay xaaladda nafaqa darro haysa ma garatay waa gartay nafaqa darro waxa heshay bugsana ku heshay waa heshay dadka ma garatay markii aan u tagnay waxa meesha alxamdulillah ka helay tiim iyaguna ka socda wasaaradda caafimaadka iyo tiim kale oo ka socda iyaguna bisha casbaan ka helay meesha ma garatay waa gartay marka sawir guud maadaama aduu meesha aad tagtay annaguna Garowe joogno naga sii waa sidee xaalku xaaladu waxa way dadka halkaas waxa ku tagayaanta hore waa si naqdifad yar uu ka tahay meeshaas oo dayrta uu ka tahay dad badan baa isugu tagay ma garatay waa gartay kaadina de waxa yimi xanuun marka hore shuban biyood baa dilaacay marka hore ma garatay haye kabaadina dadkii qandha u timi oo waxa weeye yar iyo waaweyn nugul tifsaymo hada dimashadu waxay maraysaa anigu inta aan ogahay 3 bay maraysaa ma garatay markay dadkaasi ma xanuun baa laynaya mise abaarta weeye oo biyo la'aan baa jirta waxa walaalo dadkaasi waxa laynaya 3 misal horta meesha waa isugu darsantahay ma garatay haye meeshaas waa alkeenaan oo waxa weeye reer miyigu sadacad reer miyigu waxa weeye qofku markay bisay ku soo wacayaan goorta qofku tabcaan yahay buu ma garatay waa gartay haddaan meeshii aan tagano reer miyigu u tagayna oo anagoo dhan 3 tiimaan soo tagayna waxay leeyihiin wardawadii noo keenteen maxaan ku liqnaa biyo ma haysano oo maxaad tiri dawo ma haysano maxay idin leeyihiin dadku dawana ma haystaan dawadii danka haddaan u geyn waxay leeyihiin biyo ma haysano oo waxaan ku liqno ma haysano waxa weeye qutul daruuri waxay doontaa ahaatee ama waxa weeye caana boorahaas baa ahaadeene awluna wasay dureen ma jiraan bay dheheen maxaan dawadii ku liqnaa bay dheheen ma garatay marka xaaladan aad ka sheekaynayso waa xaalad adag oo aadan horay u arkin nooceeda miyaad leedahay xaaladan iyo anigu waan wareystay odayaal badan oo baan wareystay haddaan wareystay waxay dheheen weligay anigu abaarta noocaana maanan arag bay dheheen dadkuna tartarad buu yaallaa waxa weeye si loogu kala gurmado lama yaqaano dawadii hal mar ayadoo kaa dhamaatay baa arkaysaa ma garatay marka xanuuno iyo abaar baa dadkii isugu darsamay waa sidaa warkaagu xanuuno iyo abaar way abaar de waxa walbana de ilaahay bay gacantiisa ku jiraan laakiin dadkaasi maanta waxay u baahan yihiin wax nafaqaad ay u baahan yihiin si aan lahayd waxa weeye hay-adaha gargaar waxay bixiyaan nafaqo nutritionka haba ahaato ama de culimaa diinka ha ahaate waxaa looga baahan yahay waxa weeye in dadkaasi gargaar naf iyo maalba lala soo gaaro baa looga baahan yahay anigu waxaan nin ka tirsan tiimka caafimaadka degmada ay haasatan tuulada waa garta marka dhulka aad marto oo aad ka sheekaynayso bal tilmaam naga sii waa dhulkee weeye dhulkaasi waxa uu dhexeeyaa meesha la yidhaahdo aad ugu dhow yahay jiraan buu degmahaan ugu dhow yahay marka degala la yimaadona waxaa la aadayaa 35 kilomitir baa waxaa loo aadayaa dhinaca waxa weeye koonfurta xigta bariga koonfurta bari la aadayaa 35 kilomitir weeye dhul beexeed aad u ballaaran weeye dadkuna dee waxay u degan yihiin sarab bay u degan yihiin ma garan kadib hadda waxa weeye kii ku soo celay noqonaysaa marka dee xaafad saasaa dadku u wada jiifaan oo kacaya male oo carruur kacaysa male oo qof dadkaasi waxa weeye dhuuni siinaya ma lahan ma garatay waa gartay markay maxaad fariin oo aad diraysaa yaase la hadlaysaa oo fariintaada u diraysaa waxaan fariin u dirayay dalku madax buu leeyahay madax karti iyo aqoon iyo cilmi dalku leeyahay waaye wax tusbaarayay laakiin hawsha maan baa leeyahay idinku baadiina waxa weeye warbaahinta aad baad u mahadsantihiin maadaama dee anaga naga aqbashaan waxa weeye fariimahaanu soo gudbino oo ku saabsan bulshada waxaanu inta tiirimaad kale oo kartida leh oo aqoonta leh oo cilmiga leh oo ilaahay yaqaana waxaanu leenahay dalkana mas-uulka aakhire la weydiinayo si degdega dadka ha u soo gaareen waxa weeye hana u soo direen marka ugu horta waxa weeye dad ordada soo direen hana ogaadeen meeshan xaqiiqada waxaa ka jira in anigu hadalkaan sheegayo inuu xaqiiqo yahay in kale horta bal ha yimaadeen aniguna dawladdana waaba ka tirsanayo shaqaale dawladeed baan ahay meesha jooga waxaan ka leeyahay dadka madaxda meesha ka horta
أي مادين dadkana waxa u keeneen dadkaas nafaqadar la jiifaan dawadu maanta waxba kare masaay هذا ساعات gaari baan saarnay gaariga ilmo yar xanuunsan baa tabcaan oo garaada la wadaayo burta sporta aad baa mahadsan tahay kaasna waxa uu ahaa sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland oo xiriir nagala soo sameeyay deegaano ka tirsan caduunka gobolka Nugaal waa mahadsan tahay walaal waayo waa idinka mudan mahadsanidin